مناسبة ده فرقة ميزانية لبدا كون يشاني اللباتنكا oo runtii aynu caado ka dhiganay sanad walba inaynu si daahfuran hay'adaha dawladda iyo ummadda Soomaaliyeed ugu soo bandhigno marka hore ee la diyaarinayana aynu kala soo tashano iyadoo kala duwan qaybaha kala duwan ee bulshada haday tahay ganacsatada haday tahay ururada bulshada rayidka haday tahay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay'adaha ay qusayso miisaaniyadu kuwa isla xisaabtanka ku leh iyo kuwa fulinta ku leh labadaba lagala soo tashado wasiyaalo kala duwan loogu soo bandhigo in marka golayaashu ay soo ansixiyaan waajibaadkooda ka gutaan ay noqoto xeer dhaqangal ahna la daahfuro oo loo soo bandhigo kadibna lala wadaago wareegtada lagu dhaqan gelinayo ayaa maanta runtii waxay noo tahay maalintii aynu daahfuraynay waxaanu idin la soo wadaagi doonaa wax yar kadib markaanu shirka ka baxno wareegtadii dhaqan gelinta caadada ay noo ahayd marka aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa ka soo qaybgalkiina iyo sida quruxda badan aad uga soo qayb gasheen waa la faahfaahiyay miisaaniyadda nuxurkeeda guud ahaan haday tahay kharashaadka sanadkan iyadoo la barbar dhigayo sanadadii hore iyo haday tahay dakhliga iyo eedihiisa kala duwan oo sanadkan iyo sanadii horeaba korarka jira meelaha uu ka kordhay mabaadi'da ay ku dhisan tahay miisaaniyaddu iyo hadafyada ay leedahay ee la higsanaya intaba miisaaniyadda waxaa laynoo sheegay inay tahay oo buugga hortiina yaalana ka muuqata hal dhibic 300 iyo dheeraad bilyan hal bilyan iyo 335 milyan inay gaadhay sanadkan oo macnaheedu tahay haddii miisaaniyaddii hore daraskeedii la barbar dhigo korar aan ka yarayn 4%. haddii dhab ahaan wixii sanadkii hore la kharash gareeyay la barbar dhigana korad 330 ah ayaa halkan agaasimaha miisaaniyaddu uu inoogu soo bandhigay waxay ka turjumaysaa laba wax koow in korarkaasi uu ku yimi runtii dadaal laba dhan ah dadaal dhanka dakhliga gudaha ah oo kharash ma qorsheyn kartid haddaanad dakhligaagu aanu kordhin ha noqdo ka gudaha iyo ka dibadda labadaba sidoo kale in dakhliga bannaanka inaga soo galayna ee loogu talagalay haday tahay kabka miisaaniyadda iyo mashaariicda labadaba runtii dadaal la geliyay inuu kordho ayay ka turjumaysaa waxaase taa ka sii muhiimsan oo iyana ay ka turjumaysaa markaad eegto 330 korarka had iyo jeer aale miisaaniyadda marka la qorsheeyo qorshay ku dhisan tahay fulinteeduna way ka duwan tahay fulinteedu waxay ka turjuntaa awoodda dawladdu ay u leedahay inay qorshayaashaas u bedesho shaqo oo keenaysa macnaha isticmaalka miisaaniyadda iyo ka faa'iideysiga miisaaniyadda heerka uu yahay hadiyo jeeraale waxa la inagu dhaliili jiray kaligeena ma aha dalalka runtii soo koraya oo dhan lagu dhaliilaa wax loo yaqaan absorption capacity-ga awoodda dawladdu ay miisaaniyadda qorshaysan uga faa'iideysan karto ay ku isticmaali karto kharashka ugu bedeli karto si kharashaadkaas adeegyo iyo shaqooyin loogu bedelo waxa laga yaabaa lacagta qoondaysan in la isticmaali kari waayo sababo farsamo iyo sababo la xiriira miisaan ama maxaan ku leeyahay capacity-ga dawladdu ay leedahay darteed waxa la inoo soo bandhigay in miisaaniyaddii hore oo 1 bilyan iyo 79 milyan meelahaas ahayd aynu isticmaalay lacag ka badan 900 oo milyan oo ah markii ugu horeysay ay ugu badnayd isticmaalka miisaaniyadda in la kharash gareeyo oo gaaraysa haddii aad boqolay u bedesho waxaan qiyaasayaa inaanay 84% ka yarayn inta la isticmaalay sanadkii hore
waxaan filayaa 75 meelahaas ayaan boqolkiiba ka isticmaalnay marka korar boqolay oo 10% ah ayaa dhanka isticmaalkana kordhay dhanka deeqaha dibadda iyo mashaariicdu waa kordheen waliba meelaha had iyo jeer ale isticmaal darradu ay ka iman jirtay waxay ahayd mashaariicda oo shuruudaha mashaariicda lagu fuliyana ay aad u adkaayeen maadaama oo World Bank iyo qoladan bangiga horumarinta Afrika ay shuruudaha inagu aynu leenahay hannaankeena BFM ku dhigayo qaar ka dheeraada oo fara badan runtii lagu waajibiyaan oo ku fulino iyo waxyaalaha loo yaqaano marka mashruuc la fulinayo mar walba inta aan la fulin in shuruudo ka horeeyo iyo ogolaansho iyo ansixin iyaga laga rabaa ay jiri jirto fara badan hadda mar kasta oo capacity-geena iyo awooddeenu ay kor u sii kacdo shuruudahaas waa sii yaraanayaan hadda waxaa jira mashaariic fara badan oo laga saaray shuruudaha ka horeeya ansixinta iyo fulinta ka hor waxaan loo yaqaano prior approval mashaariic badan oo ka gudbay baa jira oo inagu sideena aynu u fulinayno hadhow wixii ka yimaada iyo xisaab xidhkeeda iyo auditkeeda iyo waxaas iyagu ay leeyihiin marka kuwaas waxay keeneen runtii oo dee ka imanaya in la tuhmay ama la aaminay ama la arkay yaan la tuhmay odhanay in la inagu aamini karo iyadoo la ina kor taagnayn inaan wax fulin karno in kharashkuna uu kordho oo maxaan ku leeyahay kharash garaynta mashaariicdu ay korodho talaf dhabarta iyaduna muhiimka tahay in la dul istaaga waxa weeye waa dakhliga waa la idin soo bandhigay sida istaba joogga ah ee dakhligeenu dhowrkii sano u dambeeyay uu kobaca u sameynayay sanadkii hore markaynu halkan joognay ama aynu daahfuranay miisaaniyadda waxaanu odorosnay in lacag 346 milyan ah aynu odorosnay inaynu soo xareyno laakiin wuxuu ku dhamaaday sanadkii inaynu soo xareyno lacag 370 milyan ku dhow 369 iyo jarjar inaynu soo xareyno oo macnaheedu ay ka sarreysa wixii targetkii baarlamaanku na siiyay wali intaasaan idinka rabnaa lacag ka badan inay soo xarooto sanadkii 2023 oo daraska iyagu wuxuu ahaa 283 milyan waxaanuna soo xareynay 329 milyan lacag 60 milyan ku dhow baa wixiina loo dhigay aanu ka kormarnay haddana lacag 40 milyan ku dhow ayaan ka kormarnay intii darasku ah dadaaladaasi runtii dadaalo wadareed weeye hay'adaha dawladdu ay wada leeyihiin laga soo bilaabo auditorka hay'adaha dakhliga soo xareeya iyo wasaaradda maaliyadda runtii hormuud oo ah dakhli ururinta iyo dib u habaynta hannaanka dakhli ururinta haday tahay dhanka xeerarkiisa xeer nidaamiyaashiisa iyo siyaasadihiisa iyo dib u habaynta maamulka dakhliga labadaba intaba shaqooyin waaweyn laga qabtay waxyaalaha noo saamaxay waxa kamid ah in aanu casriyeynay ilaha dakhliga iyo qaabka loo ururiyo oo hannaanka tiknoolajiyaddu uu door weyn ka ciyaaray ilaha aanu tiknoolajiyadda adeegsanay ama automate garaynay oo dhan mid walba kor u kac laxaad la bay sameeyay